ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوفاء. الحمد لله ناصر السنة بأهل السنة، والصلاة والسلام على من أمرنا بالتمسك سنة وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني إلهي سبحانه وتعالى هايدن بركيو كسر دوادا قيبتي اللباد موضوعي أنا قلت رجلني إنا أنكر الدين الشيعة ونقو مقعدرني موحاساد أمدا أقو باقيسا أما موحاساد أمدا أقو ياريسا ونقولجيدني رافضة الصوماليات خاصة وليبا أنكو كرباشيني ninka loo yaqaano Maxamed Ali Yusuf as-Sabai as-Saghir. inta marka aan ka gudubno mawduuca ayaan maanta hore u gudagalayaa. waxaan soo qabsanaynaa hadda kitaabka loo yaqaano Usulul Kaafi oo Maxamed ibn Yacquub al-Kulayni uu iska leeyahay. waxaa timaadaan safxadda 103 yimaada. waxa weeyaan باب كلو يقانو باب النوادر حديث كأفراد فيرية، عفوا حديث كصدحات فيرية وحولي هاي سدة وفير سدة وحولي حديث كوحا لقورين يا عن أبي جعفر بالقورين يا قال وحولي نحن مثاني الذي أعطاه الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه وحانا هاي مثاني يعني waxa weeyaan sideedii oo yani quraanka 7 mathani ayaa laga wadaa yani haye oo nabi maxamed alayhi salatu wasalaam la siiyay. wuxuu yiri waliba uu sii wado wa nahnu wajhu allahi nataqallabu fil ardi bayna adhhurikum annagu waxaan nahay wajigi ilaahay u fiirsada. طيب ونحن عين الله في خلقه وفيرسدا إنديه إلهي سبحانه وتعالى أيانها ويد الله المبسوطة بالرحمة على عباده وحنا إلهي سبحانه وتعالى قعنتيسي انت نقدم لي حديث كسوق هذا يعني ما وضع معنينا. طيب عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا وإمامة المتقين عدي نقرتي دي وين نقرتي عدي نقجاهل نقطة أنا ما عرفت محاكولا ونقجاهل نقطة وإمامة المتقين إيه إمامة يعني متقين. طيب أنت أمريكان كجد حديث كأفراد لفتر كيس أوكالي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها محكم معنى يوفر صدق. قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتها أنه وحآن نهي إلهي سبحانه وتعالى أسماء ديسي أيانا أسماء دا سو إلهي سبحانه وتعالى الضمد أوسن كأقبلين عمل إلا إياك أو قرتما هنا وايهي. طيب عجائب بلو فيرسة وحا ما وحا سا أمد اللوغو يريا بالله عليكم الدين لوغا دقيا ما وحا سا دين ما وحا سا لغو قنعي كرا محمد علي يوسفو أمد ما وحا سا أغو باقي سا. طيب waxaad u timaadaa inta marka aan ka gudubno safxada 188 kale kitaabul hujja kitaabka loo yaqaano waa isla kitaabkan usulul kaafi weeyaan yani kitaabul hujja baabka waxaa timaadaa 105 baabu anna al a'immata alayhim assalam ya'lamuna ilma ma kana wama yakunu wa annahu la yakhfa alayhim ash-shay صلوات الله عليهم. انت مركا اد كسو غدبت بل وحا او يري افير صدا بل وحا او يري بالله عليكم افير صدا انيغا ايا لا يابي دوني. حديث كلبات سو قبصدا ابا عبد الله بل لغا ورينيا يقول وحور اني انيغو لا اعلم ما في السماوات وما في الارض واعلم ما في الجنه واعلم ما في النار واعلم ما كان وما يكون. وهي عجائب يعني waxa weeyaan anigu waxaan og yahay oon garanaya maxaan garanayaa cirka iyo dhulka waxa ku sugan samada iyo arladaba waxa ku sugan
garanay waxaana garanayaa waxa ku sugan jannada waxaan og yahay oon garanayaa waxa ku sugan naarta waxaan og yahay waxa noqon doona wixii noqday ee horaan yani u jiray iyo hadda waxa jiraba afwan waxa hore u jiray ma kaana wixii hore u jiray iyo wama yakunu iyo waxa jiri doonaba in yaro waxa lagu daray marka talbiis ibliis oo ah in Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihi tibyana li kulli shay intana waxba ma faa'iideynayso طيب يعني intaasi waxay waxba u faa'iideynayn waxa weeyaan yani wax kasta baan ognahay idan waxa weeyaan waana soo insha Allah ta'ala xalaqaadka dambe ayaan jeclahay inaan ku keeno in ay aimadu yaclamuuna al-ghayb in ay aimadu ghaybka ay og yihiin oo ghaybka ah Allah jalla wa ala waxyaabaha uu la khaas yahay inay og yihiin ayaan keeni doonaa insha Allah ta'ala inta markaan ka gudbo waxaa timaadaan kitaabka loo yaqaano man laa yaxduruhu al-faqih ikaalaya shaashada hortiina ka muuqata kitaabka markasta halkaasaan idiin soo dhigaya waxaa timaadaan xadiidka raqamkiisu uu yahay 3172 yimaad وقال عليه السلام oo ah جعفر الصادق muxuu yiri من زار قبر الحسين ابن علي عليهم السلام جعل ذنوبه جسرا على باب داره ثم عبرها أو عبرها كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبره أفرصد بالله عليكم بالوحن أيضا يعني وحو يري قفكي زيارة قبر حسين ابن علي عليهم السلام وان قرني إلهي سبحانه وتعالى يعني الذنوب تيسا وحاو كياليا sidii maaragtay maxaan ku dhahaa buundo oo kala oo la dulmar anagu kaabad baan u naqaanaa yani shay laga talaabo jisri meel laga talaabo oo kala ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiisa uga yeelaya ala baabi daarihi oo waliba ilbaabkiisa yani hortiisa daartiisa yani uu dhaafaya uu dambigan yani uu iska dulmaraya oo markaad si dhaafto buundada waad ka sii talaabaysaa yani gadaal bay kaaga hadhaysaa saas oo kala ayuu dambigu kaaga hadhaya weeyaan dambigu saasoo kale kaaga hadhayo ka gudub waxaa timaada xadiidka labaad waxa warinaya can abi basiir can abi abdillah alayhi salam qaala wuxuu yiri wakkala Allah azza wa jalla bil husayn salawatullahi alayhi 70000 malak ilaahi subhanahu wa ta'ala husayn wuxuu u wakiishay yani qabrigiisa 70000 oo malag buu u wakiishay yusalluna alayhi يعني أسجى أي أمانيا في كل يوم مالين كستبا شعثا غبرا إيجا أو بصاصا أو بوريسا يدعون لمن زاره ويقولون وحي أدعين يعني عدي سو زيارته ويقولون وحي أرانيا يا ربك يو هؤلاء زوار الحسين أو زوار الحسين يعني وحويا واكوا سو زيارة الحسين افعل بهم وافعل بهم يعني صدا إلهويا أم بصاكيا عجائب طيب انت مركان كجدبنا وحولي يا في صدح محان كودا حديث كان لبعض وقال عليه السلام وابي عبد الله مركا من اتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه قفكي يمادو قبر حسين اسغو حقي سغرانيو كتبه الله اليه سبحانه وتعالى وحقر عز وجل في اعلى العليين في اعلى عليين عنده في اعلى عليين يعني waxa weeyaan darajaadka jannada kuwa ugu sareeyo weeyaan ka gudub safxada soo rug waxa timaada xadiiska raqamkiisu uu yahay 3177 imo wuxuu leeyahay firs عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام قال مروا شيعتنا بزيارة الحسين بن علي عليهم السلام فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل محنكر السبع وزيارته مفترضة على من أقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل طيب حويان
يعني قفكي زيارته وسو زيارته حسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه زيارة قبرجيس وحا اي كدفعنيسا هيه يعني انو قفكو ماركتي ميل كدمو iyo inuu qarqoomo oo yani daad iyo waxyaabo caynkaas oo kale ay qaadaan ama inuu gubto ama inay xayawaan cuno laana sababtoo ziyaaradani farad ay kugu tahay waajib ay kugu tahay qofka qiraya waliba Hussein ibn Ali muxuu qiraya qofka qiraya yani imaamnimadiisa inta marka aan ka gudubno arin cajiib oo ku soo baxay ayaa jiro sawirkan ila fiirsada ninkan Maxamed Ali Yusuf wuxuu joogaa Karbala idan muxuu tagay aafaadka iyo balaayooyinka oo dhan ayuu iska daboolaya waan insha Allah ta'ala ziyaaradka waan sii wadi doonaa xadiiثaanta waliba waxa weeyaan waxaan keeni doonaa ayaka oo la leeyahay arsaaqada iyo rizqa ayay beerisaa oo arsaaqad fara badan baad helaysaa ziyaaradka aad ziyaaranayso a'immatu ahli albayt qubuurtooda inta ayaan ku gabagabaynayaa hadalkayga waan idin salaamayaa ikhwaani fillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala minhu wa barakatuh